xarunta xirfadleyda Olombikada ee magaalada Tokyo ee wadanka Japan waxa ugu dambeyntii loo qaabaynayaa hab cusub oo casri ah waxayna calaamad u noqonaysaa inay ku daydaan xarumaha kale ee xirfadlayaasha agaasimaha guud ee mashruucan oo lagu magacaabo Masamichi Nagata ayaa waxa uu yiri waxaan ku samayn doonaa saqafka ku xiran fiilooyinka iyada oo loo isticmaalayo waxyaabaha hidrooliga mid ka mid ah jeegaga waaweyn ayaa waxa uu qaadi karaa ilaa 30 tan tani waa qiyaastii 200 oo tan waxaanuna kor ugu qaadaynaa 5 mitir saacadii qalabka dhismaha ayaa waxa loogu talagalay 10,000 oo kursi oo lagu martigelin doono ciyaaraha kala duwan ee Olombikada iyada oo dhammaan jadwalada la qorsheeyay in la dhigo bisha May ee soo socoto abaabulayaasha ciyaaraha Olombikada ee Tokyo 2020 ayaa waxa ay sheegeen in dhismuhu uu yahay mid ku habboon ciyaaraha iyo waliba goobta oo ku taala degmada Areike ee caasimadda Japan waxa ayna xaruntaasi martigelin doontaa munaasabado kale oo badan oo la xiriira ciyaaraha Olombikada inkastoo loo isticmaali doono xarun bandhigeed marka ciyaaraha la dhameeyo haddana waxa looga faa'iideysan doonaa siyaabo badan dhismaha waxa la dhameynayaa dhamaadka bisha Oktoobar ee 2019 xilligaas oo lagu jiro xilliga tijaabada ah ee ka horeeya bandhigga xagaaga qaab dhismeedka kumeel gaarka ah waxa loogu talagalay in la burburiyo 2030 si loo fududeeyo in qalabka dib loo warshadeeyo iyo waliba si loo soo bandhigo warshadaha qoryaha ee wadanka Japan Saeed Ahmed Tamreise wararka telefishanka caalamiga ah ee Star